السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا عشر كيني سيديداد ابليكيشن كاكسل كا عشر كيني سيديداد waxaynu ku qaadan doonaa insha Allah taala qaabka loo xisaabiyo percentage ka. halkan xog ayaynu ku haysanaa arday waxa weeye arday ID-ga ardayda waa kuwan magacyada ardayduna waa kuwan xisaabta mid waliba wuxuu keenay tarbiyada mid waliba wuxuu keenay Englishna sidaas la mid ah Arabigana sidaas la mid ah haddaba sababta aynu totalka u soo qaadanay totalka hore ayaynu xisaabinay insha Allah totalka waxaanu maanta ugu soo darnay sababtu waxa weeye percentage-ka ayaan total aan la xisaabin karin oo ku xidhan tahay percentage-ku waxa weeye boqolkiiba maadooyinkaas oo dhan marka la isu geeyo totalkooda oo loo qaybiyay ka soo qaad 12 maado ayuu ardaygu dhigtaa sida kuwa dugsiga sare dhigta oo kale mid kasta boqol baa lagu saxayay haddaba 12 maado marka la isu geeyo mid walba wuxuu ka keenay oo loo qaybiyay 1200 oo loo qaybiyay 1200 mid waliba boqol bay ahayd maadooyinka mid walba wuxuu ka keenay oo la isu geeyay oo loo qaybiyay 1200 ilaa mid waliba boqol bay ahayd haday 12 maado ahaayeen intuu ka keeni karaa percentage-kiisa intuu noqonaya qofkaas bal intuu haysto percentage ahaan aynu ku xisaabinayna sidoo kale percentage-ku waa xisaab la dhigto oo formula la isla yaqaan iskale formulada lagu xisaabiyo percentage-ka waxa weeye in totalka maadooyinka ama xisaabtaas ama tiradaas totalkooda oo loo qaybiyo inta god ay tahay oo min boqola 1 2 3 4 afarta god min boqol baad ka soo qaadanaysaa intana waad sugeynaysaa wadartooda oo u qaybisay boqol oo markaas lagu dhuftay boqolka kale lagu sii dhufanaya wuxuu u taagan yahay percentage marka inagu boqol ku sii dhufan mayno inaynu ama boqolka ku dhufano ama waxa weeye percentage-ka calaamadan percentage-ka aynu soo qaadano ayay noo noqonaysaa haddaba marka hore si aynu percentage-ka u xisaabino aynu marka hore la soo baxno totalka sidee loo xisaabinayo waxaan lahayn equal kadib sum baynu lahayn tab baynu leenahay kadibna saa waxa la adgaray maadooyinkan afarta maado interde ninka ugu horeeya oo la yiraahdo Maxamed waxa uu haystaa totalka 336 haddaba intan kale sidii yareed aynu waxa weeye wada gaarsiinayna si aan waqti badan aynaan ugu lumin laakiin sidaas oo kale baad u xisaabin kartaa qof kasta totalkiisa waka ardaygaas ama ugu sareeya maadooyinka oo dhan qaabkaas ayaynu xisaabinayna haddaba percentage-ka oo 10 keenana uu daaran yahay ayaynu u baahanahay inaynu maanta xisaabino marka aynu xisaabinayno percentage-ka waxaanu leenahay equal kadib waxaanu leenahay totalka oo loo qaybiyay horta intaynan halkaas intaynan u gudbin totalka waxaan doonaynaa godka markaan taaganahay calaamada percentage-ka ayaynu dooraynaa ama ishan yar fur kadibna waxa weeye halkan ka xulo percentage kadib halkan marka percentage halkaas ay wayna isha yar ku ahata percentage ama calaamada percentage-ka dooran ama ishan yar baad furiyo kadibna waxaad ka soo dooran percentage dabeedna halkan kaalay equal dheh waxa tada totalka dooro totalka oo loo qaybiyay imise maado ayaad haysataa afar maado oo min boqola 400 loo qaybiyay dabeedna inter baad leedahay sorry mala waxbaynu qaladnaan filayaa waxaan leenahay totalka oo loo qaybiyay 400 inter baan leenahay laakiin waxaan doonayaa inaanu sirooyada raacin sirooyadaas aynu ka soo qaadno halkan ayaynu qaldaynay halkan percentage-ka marka ugu horeysa soo dooran general taa ku ahaato kadib waxa tada equal isla markaana soo dooro tirada totalka oo loo qaybiyay 400 oo maadooyinka 4 maado min boqola 400 kadib xisaabtan ayaa ku soo bixi doonta xisaabtan soo dooro marka soo doorto calaamada percentage-ka raaci hadeer toos ayuu noogu soo saaray sirooyadii uu raacinayay waa inaga jaray marka percentage-ka qaabkaas aynu ku soo saarno sidoo kale kan hadaynu u baahanahay waxaanu leenahay equal isla markaana waxaan leenahay totalkiisa dooro oo loo qaybiyay 400 oo 4 maado ah kadib inter baan leenahay qaabkan ayuu noo soo saari doonaa waxaanu dooran doonaa calaamada percentage-ka isla markaana percentage-ka oo sax ayuu noo soo saaraya
marka dee ardaydu hadday aada u fara badan tahay waxa weeye ishiini yareed baynu qabanaynaa oo waynu wada gaadhsiin ardayda oo dhan saasoo kale qaabkaasi ayaad percentagekana u xisaaminaysaa insha allahu tacaala intaynu ku kulmi doono casharka 9aad ee applicationkeena excelka waxaan idinku salaamaynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu